السلام عليكم أصحاب فاضل قروح واحد واد السلام ملك ستو دون كذا جوكتين سلام قالي إذا كل سلامي ولا لها قلبك ولا لها مرور بنرجوه وأم هاد إن شاء الله ولا لها عصب أي كانوا نقصوا بيردون وحاليه سود وهذا جنالك وجنال كينا فضلا سبسكرايب صار إن شاء الله قبل الكفرة إن شاء الله ندير قلي كومنتي لايك هنقى بقيلن جنالك وجنال كيني ما أنت فاضل قروح محك هذا الدون تا إن شاء الله وحك هذا الدونا برامجك aan ka hadli doono maanta waxaa waaye ninka la yiraahdo Bilaal Bilshaawi ma asaga rinjiga buluuga watay mase waa la shirqoolay oo maqaaxida shirqooshay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابك سووا البويداون سويدي سلامي. waxaan joogaa magaalada Hargeysa hore idinku sheegay wili Hargeysa joogaa waxaan dhex fadhiyaa maqaayadda ugu shidan magaalada Jumeera waa u jeedin shaah oo waxa la soo sameeyay calanka Soomaaliya ah ku qabo sida u jeedaan waa calanka Soomaaliya waaye waa u jeedin waxaan dhex joogaa Hargeysa maqaayadda Jumeera dhex fadhiyaa caawa iyadaan ku qoranahay meeshaan ku baashaloonaa Hargeysa si qurux badan loo soo dhaweeyay ee ugu horeysa Jumeera marka waxaan la idin kala ku soo dhawaada aad oo maasantiin Hargeysa hashidnaato. السلام عليكم أصحاب فاضل قروح واحد واد السلام ملك ستو دون كذا جوكتين سلام قالي إذا كل سلامي ولا لها قلبك ولا لها مرور بنرجوه وأم هاد إن شاء الله ولا لها عصب أي كانوا نقصوا بيردون وحاليه سود وهذا جنالك وجنال كينا فضلا سبسكرايب صار إن شاء الله قبل الكفرة إن شاء الله ندير قلي كومنتي لايك هنقى بقيلن جنالك وجنال كيني ما أنت فاضل قروح محك هذا الدون تا إن شاء الله وحك هذا الدونا برامجك aan ka hadli doono maanta waxaa waaye ninka la yiraahdo Bilaal Bilshaawi ma asaga rinjiga buluuga watay mase waa la shirqoolay oo maqaaxida shirqooshay Bilaal Bilshaawi waxaa la yiri horta waan ka xunahay walaalkeen Bilaal Bilshaawi in la xiray oo xabsiga Hargeysa lagu xiray maadaama uusan ahayn siyaasi maadaama uu yahay wiil yar oo TikTok oo madaxweynaha TikTok gaar ahaan Soomaaliya Muqdisho dhalinyarada ugu cadcad ee TikTok oo maasha Allah mar walba lagu xiran yahay dhanka xayeysiinta sida ganacsiyada kale qosolka waxyaabaha qosolka ah waxaan leenahay horta Bilaal Bilshaawi nin siyaasad ku jira ma ahan waa nin dhalinyaro ah oo waxba siyaasad ka ogeyn oo waxbarashadiisa iyo aan dhaafsaneyn Allahumma musta'an TikTok-giisa isbaashaalkiisa markuu waqti u helo iyo waxbarashadiisa maanta nin la dhihi karo ma ahan siyaasadu ku jira sheeko kale oo damacsan yahay Soomaaliland waxa leenahay gaar ahaan shacabku horta shacabku waxba ma geysan mar walba shacabka dadka waxaan leeyahay media inta soo galaan shacabka iyo labada shacab madaxa isku gelinayaan joojiya waxaas Soomaaliland oo dhan Bilaal Bilshaawi ma aysan xirin askara xirtay ama madaxda meesha ka talisa xirtay askarta waxaan loo idman ma qabtaan كلي أنا لا تهاي واساس درائي أسكرت وحنا لا درن مقطعن واحد ضدك ودرايا أسكرتنا ومضحلة ماشي فلسه شعبكو وحبكم شعب كيان لسكور كين شعبكو ولاله وويليا أبتجيس لما كلام مارمو شعبكم مروا بويسدلن سياسة قلف سن يا شعبك لو استعمال شعبك يعني لو استعمال سياسة رئيس مالن سياسة الصومالية يعني لا استعمالين رئيس مالنا سياسيين تنا محليها المها يركها هدي ينصاب بقدين أو ودن كود يصاب بقدين أو أي جعل أو إمادين سور دوية هاتو سنين حمان على مستعان عقدتها كبيرننا وويل ير أو يعني سكبة شالي إلا جرو وتجي جرو ما شاء الله وأجدين أصلا تيك توك رسا أو تيك توك يعني روايدير أما قصل كجلا أو أجدين جرو وسيل لو سودوي ما شاء الله عسقي شرفت لهم موجي marka adinkan asaas oo kale idin ka rabay ma ahan inaad xabsi dhakab ku siisaan taaniin waxa eedaynaya dadka dhahaaya Bilaal Bilshaawi asaga watay rinjiga buluuga ah Bilaal rinji buluuga ma uu sawadan maqaaxida lagu keenay maqaaxida lagu sameeyay waana shirqo loogu talagalay in uu faafiyo oo TikTok galiyo because haduu maanta haysan lahaa maskax celisa in falkan laga dambeeyo
tartiibtiisa intoo fideogiisa dubta xataa markuu xamar imaado xataa uu dhigi lahaa laakiin ilmo yar oo talada ka halowda waaye almuhiim waa loogu talagalay maqaaxidan ugu talagashay inkastoo maqaaxida ay inkastoo dhaheen bilaal bilshaawi rinjiga isagaa watay bilaal bilshaawi rinjiga ma uusa wadan waa wax loogu talagalay oo lays dhahay hadhow hadhiga tiktok ha ku baafiyo ha ku baraha bulshada ha ku baafiyo dan hala arko saas ha lagu xiro bilaal bilshaawi allahumma musta'aan sidaas ha lagu sameeyo waa qorshe loo dago ahaa maqaaxidaana qorshaha u degtay in cunugan yarkaasaa lagu sameeyo asagana dee farxaddii inta ka damudantay wuxuu bisir waaba tanaha alla ilaha maanta waxaa lagugu soo dhaweeyey calankaaga oo kafey lagaaga sameeyey aa lagugu soo dhaweeyey yacni wuu farxay isla marka tiktok ka duubay tiktok soo dhigay asxaabtiisoo la wadaagay markaasi farxad aa ka badatay maxaa ka dambeeyay jeelka liinta ku cabooyay wallaahi waan ka xunnahay ina yar oo waxba garabsan in la xiro marka reer Somaliland qaasatan madaxda waxaan leenahay dhalinyarada cuqdada ha ku beerinina markii la idin imaado wadanka free ka dhiga siyaasadiinu ha idin gooni ha idin ahaato laakiin dhalinyarada ha gelinina cuqdad maasha Allah lama kala maarmo maasha Allah Somaliland fanaaniinta markay ka imaadaan oo kale dhalinyarada markay shaqo ka soo doontaan muqdisho waa aragteen sida loogu soo dhaweeyay muqdisho maanta caalanka Somaliland hadduu ka suran yahay cid ku mashquulsha ma laha in loo sacabato ma maahan cid ku mashquulsha ama dhahdo waxay caalankan ma ahan marka iska daaya waxyaabaha qaar aan waxa la hadlayaa Somaliland iska dhaaf waxyaabaha qaar adduunka walaala lagu yahay adduunka waa laga tagayaa nimba maalin buu dhimanayaa nimba maalin laakiin waxa sharaf darro ah anakii Soomaali inaan is cunayno oo yacni ana waxba isku ogoleen oo waxaan ku yiri saa dhagaha iskaga naareen saa isku seeneen qabiil dartiis ama yacni waxyaabo bari hore la sameeyay waxaas adduunka waxaan ku yiri dad walaala way islaayaan wayna ka heshiiyaan marka ma aha wax sababna hore dhacay in adduunka hormaray inaan ka dambayno waa laga yacni waa waxyaabaha uu qabiilku nagu sameeyay adduunku wuu hormaray muxuu ku hormaraa inay dhalinyaradooda horumar gaarsiiyaan ay dhalinyaradooda wax bartaan ay dhalinyaradooda meel iska soo saari karaan anaka dhalinyaradan maxay iska soo saartaa oo kaasa xabsiyaaba lagu oodooyaba wadankii uu farxadda u tagay hargeysa farxadda u qabay xumaan hadduu u qabo asba ma imaadeen hadday xumaan ku jirto bilaal bilshaawi iyo kuwa kasii yaryarba ma uusa tageen ay ficil uu ku jiro laakiin waxay idin tusaysaa inuusa ficil ku jirin siiba dhalinyarada xamar jooga inuusa ficil ku jirin oo yacni isa qalbigooda xumaan ku jirin marka waxaan leenahay bilaal bilshaawi fadlan ha laga soo daayay xabsiga isagoo nabad qaba wadankiisa tartiib ha loogu soo celiyo meel wuxuu u dhashay aan qabiil laga aqoon allahumma musta'aan aan ciyaal xamar iska ah oo waxaan ku yiri baashaal walaal waxaan ku yiri ilaahayna waxaan ku yiri wadankeena nabad ha nooga dhigo insha Allah taaniina waxaan leeyahay dadka yaa madaxa la isku gelin shacabka yaa madaxa la isku gelin shacabku way wada dhasheen ma kala maarmaan waa wiil iyo abtigiis mar walba lama kala maarmo mar walba dad isla dhashaanahay dad asxaabaanahay dad isjecelaanahay siyaasiyiinta waxaan leenahay shacabka madaxa isku gelin waxa la rabo in madaxa la isku geliyo waa shacabka wax أو قبل وح شعبك هدوك عنا وبس أو مدح الإسكوجلي هدي رئيس Somaliland أنت كسر عيتمان على مستعان هدي كونفر أنت كسر عيتمان أميدي الإسكو أفلق ديو وأنا شرف ضره مركو حاليا هاي رئيس Somaliland إن شاء الله لأن يرد آخر حريسين أحبسك كنت حابسين فضلا جوجية وحاس ووح يعني لقى ديو وح في عن معهن ما ونعكسنه sidii isma dhaantoo kale waa ogeedeen waa lagu xiray boolka laga soo celiyay waliba xabsiga inta la geliyay waa aragteen xamar markay imaadeen maasha Allah sida lagu soo dhaweeyay quruxda badan maasha Allah xaafad kasta ay booqanayeen meel walba qad sharaf loogu sameeyay marka adinkana daa waxa la rabaa saas oo kale inay sameeyaan waliba xataa maasha Allah waliba waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada reer Somaliland oo youtuberada ah sida sharafta leh ويل بارك إرديس أصفناين أي أسر دويناين وولي حتى ويلكي محمد يريس أو كجر محمد يريس أو يرى حتى وكجر سد أي أصفناين أي أسر دويناين أي فرحت وقبين إن اسمه رام طلق المان إن يسور دويان بلال بلشاوين وحسوا جاي لأن يربطن أو سومالنا تيك توك عنك هجرة إيه كان السد وقال إن يسور دويان أنت وحمة الشيل كأ ka badan adduunka waxa qasaysa hadda inankaas yarka fajka loo walaaqay waa inta kafay bluega
بوتر بلو انت لوgu bada blue inta kafay loogu sameeyay yani oo kala badbad wuxuu sir maqaaxidan waaba kana haabe calankaaga waxay kuugu sameeyay kafay markaas video ka dubtay maantay ra'yi ahaan asaga hada ahaan laha wadankii aan tago kafay la sameeyay tartiibteeda TikTok-ga ta ka dubtaan saaf inta dhalaan waxa ku raadhow markaan meesheeda imaadaan dhac ku siila yaa la gaadaa dhac waa gaad laha ay kan laakiin way ku dhacday hadda waxa loo ragay inuu budada asaga watay lugula budada bluega asaga watay kuwa oo bila maraxiino TikTok ku jiro budada asaga wato siiba mid Jarmalka joogo oo qanjo waaweyn alaya gafuurka ku dhifta marka waxaan leeyahay Soomaaliya intaasna waa iska kaftan inta xumata shilkaana waxaan leeyahay xumata shilnimada iyo joojiya waxyaabaha qaabka daran oo aawadiin Soomaalidu waa walaalo lama kala maarmo waa wiil abtigis mar walba waxayna nahay dad isla dhashay lama kala maarmo mar walba waxaan nahay far iyo farantigeed mana kala harayno abad ilaa qiyaamahan waxaan ku reeb kofar iyo qoys isku daba taagnaanay marka asxaabta waxaad leeyahay sida ay nabadgelyo dad wada dhashaan nahay yaan dhexdeena dhigin waxyaabo falxun xilligan waa xilligi qof walba horumar isgaarsiin lahaa adduunka adduunweynaha waxay ku fakaraan heersay isku horumarin lahaayeen wadamadooda loo dalxiis tagi lahaa wadankeena dalxiis iska dhaafay waaba la isku qashaabe xasbunallahu wa ni'mal wakiil marka saxaabay waxaan idin leeyahay fadlan hadii aan ugu cusub tahay janaalku waa janaalkaagii haniga baqeel subscribe-ka na soo dhaweey Allahu musta'aan asxaabta hore noola joogtana mar walba waxaan leeyahay aad u mahadsantiin mahad celis waxaan ku saa igu soo yaac subscribe-ka saa dhac suulka saa iska saar sidaa ay nabadgelyo aan leeyahay